shirkan jaraa'id ee ay maanta ku qabsadeen gudaha magaalada Lughaya dadka ku dhaqan magaaladaasi kuwaasi oo iskugu jiray odayaal ganacsato iyo dhalinyaro ayaa ay kaga hadleen dhibaatooyin ay ku sheegeen in ay ka socdaan gudaha magaalada Lughaya isla markaasina waxa ay eedayn ballaadhan u soo jeediyeen taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha degmooyinka Saylac iyo Lughaya oo is-hortaag ku sameeyay sigaar dibadda ay u dhoofin jireen ganacsatada deegaanka Lughaya sidoo kale waxa ay aad u ambaareeyeen maamulaha kastamka degmooyinkani oo isagu ka biyadiiday in loo cashuuro badeecadahaasi ay wateen ganacsatada degan gudaha magaalada Lughaya waa kan iyaga oo ka hadlaya arrimahaasi waxa dhacday annaga oo sharciga u ganacsanayna oo waxayga dhoofsanayna oo kontrabaan iyo wax madmadow aan rareyn muwaadinka Soomaaliyeed lamida ayaa ciidamo badda ah nala dul keenay halkaasi baa lagu leeyay dhalinyartii xamaalaysay kuwii shaqaynayay ganacsatadii waxa la soo gaarsiiyay waxyaabo ka baxsan xuquuqda bini'aadanka oo kula dhaqmaan ciidamada oo amro ninka la yiraahdo kabtan Dirawal ninkaasi oo ku soo bixiyay amar in la joojiyo ganacsiga aan ka ganacsanayno iyo waxyaabaha aan ka shaqaysanayno haddii shidaalkii maxaan ku dhahaa Lughaya ka soo degi jiray loo xidhay maxaan ku dhahaa haamaha berberaad haddii maxaan ku dhahaa arigii ka dhoofi jiray Lughaya aljaabir iyo indhadeera loo xidhay haddii sigaarkii aan dhoofinaynay loo xidhay maxaan ku dhahaa inaa u siciid maxaan ka shaqaynaa annagu degmada maxay ka shaqaynaysaa dadka degmada joogay muxuu ku noolaanayaa waxaan leeyahay dawladda Somaliland sidaasi ha ka bedesho Saylac iyo Lughaya dadka degan dulmi aad qabnaayo dawladda Somaliland ka qabnaa tamka Saylac jooga ee la ileeyahay madaxweynahay ilma adeer yihiin la ileeyahay ee ka bilaabay rabashka Lawya Caddo maantana Saylac iyo Aasha Caddo iyo Lughaya balaayadii halka uu ka riday daraad maantana annaka nagubayso hadday dawladdu abba madaxdu wax uga qaban waayaan annaka wax ka qabani Dirawalka loo soo magacaabay ciidanka badda ilaalada xeebaha Saylac iyo Lughaya uu leeyahay lama dhoofin karo waxaan laba soo dejin karo taasina waxaan qaadan karna maaha dhimashaana ka xignaa wixii inta dhaafsan ee maanta intii ka dambaysan loola yimaado dhibaatooyinkan maanta ay saxaafadda u soo bandhigeen waxgaradka magaalada Lughaya ayaa ah mid salka ku haysa aburin iyo cadaadis ay ka tabanayaan taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha iyo maamulaha wasaaradda maaliyadda ee degmooyinka Saylac iyo Lughaya kuwaasi oo inta badan soo bandhigaan shacabka ku dhaqan gobolada Awdal iyo Salal balse cabasho kasta oo ay soo jeediyaan dadka deegaankani ayaa waxay noqotaa mid dhagaha ay ka furaysato xukuumadda ka arrimaysa Somaliland taasina waxay abuuri kartaa buuq iyo rabshado aan caadi ahayn oo Ali Xajar Somali Channel magaalo xeebada Lughaya.